dhegaystayaal kulanti waxaan dhammaantiin waxaa maanta noo suurta gashay inaan wacno ama aan wareysano siyaasiga weyn oo Soomaaliyeed Cali Maxamed Axmed Cali Daacuun oo ku sugan haatan Nairobi oo khadka telefoonka si toos ugu jiro isagoo Cali Daacuun ah nin siyaasi arrimaha siyaasadda Soomaaliya in badan oo xaq doola madasha sigistigana aad ugu xiran hadba waxa soo kordhinaan nala socodsiin Cali maalin wanaagsan ku soo dhaw madasha sigistiga waa soo dhawaay madashu way mahadsan tahay adigoo asadna waa mahadsan tahay dadka dhegeysanaya ama akhriyaya waraysigeena waa ku mahadsan yihiin waana dhawahay علي أفراد الساعة لصوت في سياسة الصومالية هذا وربا كسر دعاية قرالة بدنا باش عالم صارين وأركني وأنا آخرني جودهان وحن أوجين شلي ورئيسي أنا سمدوش أنا كان هالعلنينا إن مدحونيال ما ملقبلية قاركود ينرب جوجان بل إلا أفراد سعودن بمحارس بدلوا وقوم مغلى صباح حالة الصومالية بسم الله الرحمن الرحيم الكل يستقال بقول يسوي سياسة كمركي أين بربوطي والدولة من الترجة إلى ماشى كبحضي وحاصلته سينونا وريجي يونايت نيشنكا محاجة لدى الدولة يونايت نيشنكا كم دبينو هاين كذب يونايت نيشنكا وحين وريجي سميدو أفريقيا midowga Afrikada waxay inagu wareejiyeen oo yiraahdeen gaarsiin badantii dawladnimadooda ay soo ceshanayaan oo ay halan karayaan urur goboleedka IGAD oo markii hore loo aasaasay abaarooyinka iyo masiibooyinka kadibna isu bedelay siyaasad oo marxaladda saalashan iyo 20 sanadood ay ku jiro aynu soo maray maalintii dawladda United Security Council-ku uu Muqdisho tagay waa sidaan horeba u sheegay laba arrimood uu yiri election waqtigiisa la qarto qodobka labaadna in heshiiskii la dhaqan geliyo ولا إسكاجيمي وحكى بحي مقدشو اسمه ساعداس مدحوينها كوفر قلبات شريف حسن هي مدحوينها قلب مدن عبد الكريم وحنقوم يا سجال يلا بعد ساعة عدودين مقالة نيروبي تشوجين شرع وحاقش كوباك من القرآن كي يوروبيا يونينكا بكل احترام مركز كوشي القرآن كا يوروبيا يونينكا وقعتكا sida hadda ay ummadda Soomaaliyeed uu u soo gaaray ama loo akhriyayo safiirka Nairobi fadhiya Jamaal ayaa ku guntaday oo yiri adcafad iimaan laba maalmood nafsiyo oo qodobada tan adag qaarkood ka saara sidaasaa dabadeedna dhacdayo qodobo aad u halis ah laga saaray wiilku wuxuu safiirku wuxuu la hadlay markaa madaxweynaha warqadda European Union kana uu gudbiyay ka bacdi waxa dhacday in madaxweynuhu uu la soo hadlay Cabdikariim iyo Shariif Xasan qolada European Union kuna naftoodu waxay yaabeen sababaha halka idin dhigay waa maxay Sheikh Shariif Xasan wuxuu ku socday magaalada London Cabdikariimna halkan ayuu maraaqada ka ahaa iyo dowladda عليو adigu saaka waagu noo bariyay iyadoo labadii nin diyaaradii UN ka la siiyay oo la yiri waa inaad xabad dib ugu noqotaan okay عليو waa gartay waxay dad badan ama ummadda Soomaaliyeed la yaaban tahay iyadoo madaxda Soomaaliya aad madaxweynihii xukuumadii iyo madaxda wadatashiga qaranka oo kamid ahayeen madaxweynayaasha maamul goboleedu iyadoo xaaladda Soomaaliya murugsan tahay oo waraaqahaasi dhabaalaha iyo calaamad isdhaafayaan marka hore maxaa kaleefay laba madaxweyne oo maamul goboleed inay wadanka Soomaaliya taladiisa xamar inta ka soo tagaan damaashaad u soo aadaan maxay tahay xaaladdaas maxaa lagu macnayn qayr mas'uulnimo waynu nasiib daranahay ummadda Soomaaliyeed habaar bay qabtaa meel kale loogama iman gudaheeda looga yimi mas'uuliyad daraan ku tilmaami karaa UN-ka shirkiisu 2 saacadood markuu dhamaaday ayay soo baxeen Security Council-kii iyaguna waxay ka soo degeen Wilson Airport waxaa lagu tilmaami karaa qayr mas'uulnimo waxaa lagu tilmaami karaa inaan xilka saarayn dalka waxaa lagu tilmaami karaa in laga tashado waxaa lagu tilmaami karaa in la yiraahdo على داعون واقرني هذا مدحda Soomaaliya kuwii soo baxay kuwii joogaba gudihii baa la isku tagay waraaqaha soo baxay dawladda Mareykanka waraaqaha soo saartay midowga Yurubna waraaqo soo saaray sida aad noo sheegay sidna waxa leedahay arintan ba wax si adkaan lahayd waxa macnaha sheeg isku daboolay oo xaaladdan macnaha marada madaxa ku duubtay safiirka Soomaaliya Jamaal maanta wararka helayno madaxda Soomaaliya haato xukuumadii iyo baarlamaankii oo gudoomiye baarlamaanku oo golihii dib u dhigay
hadda shirba maanta uga socda Soomaaliya wararkaas hadda gudaha lagu shirayo wax tafaasiil oo dheer oo naga siin karta ma jiraan walaalow gacaliyow waa runtaani markii gudaha isugu tageen sababta gudaha geysana wax kale maaha way soo dhaaftay ciyaartii way soo dhaaftay anaa reer hebela way soo dhaaftay anaa madaxweyne goboleeda way soo dhaaftay riwaayad way soo dhaaftay reer hebel annagaa ah way soo dhaaftay cirkaanu soo duminaynaa waxaa la yidhi 2 maalmood baad haysataan oo ka bilaada ka tirsi berri iyo saa dambe madaxweynaha 2 shay laga sugayaa qodobka 9aad wuxuu sheegayaa inuu madaxweynuhu kala diri karo baarlamaanka marka waqtigiisii uu dhamaado gebelgebaynu ku jiraa qodobka 2aadna waa inuu decree soo saaraa decree haddii uu decreegaa soo saaro beesha caalamka wadaa u furantay dabadeedna wadadaasay qaadayaan horta 2daa qodob baa madaxweyne xasan sheekh maanta huran oo caawa gondihiisa yaal siduu uga dabaalan lahaana waa hawl isaga u taalla markaa warka aan helayaa waxa weeye in nimankii baarlamaanka ahaa la kala furfuro oo cabdilkariim iyo madaxweynuhu kuwa ka soo jeeda ay isku beer yihiin ay la hadlaan jawaare iyo shariif xasan kuwa isku beesha yihiin la hadlaan ina cabdirashiid iyo axmed madoobe iyo kan kale ee cabdiweli kuwa isku beesha yihiin la hadlaan maxaa yeelay daaroodka 2 meelood oo meesha diidan aqalka sare oo aan danahoodii qabali iyo dartii maslaxadeeda uu isagu lahaa midna aanay ka dhex muuqanayn siyaasi cali daacuun ma u imanayna cidda diidan iyo cidda ogol iyo xaalka Soomaaliya meesha ku dambeyn doona waa jeexjeexi doona dhageystayaal weli halka naga dhageysanaysaan waa madasha sigistii anigoo aasanahay warka soo gaarsiinaya weli waxa qadka telefoonka ugu jira siyaasiga Soomaaliyeed siyaasi cali daacuun على دعونا هذا نقص الله من السؤالين واحد تري مصلحة الصومالية ما أنت بلعب بمريسا عيارتي وصوت دافتي عيارتي ما واحد صوت دافتي تذكر لي قاضي كعده يسد مدحويرها وحلقة إنه باربعة كلا الدرا وحنقصنا هاي كل ما يجوه الرؤية مركب باربعة كلا مجعبي وجواري مدحويرها على دورته كل ما يجوه الرؤية قاضي كمدحويرها إنه كلا الدرا كلا باربعة وعلى الله علي مياسن qodobkaas orri meesha ku jirin si madaxweynuhu macna qodob la laali dib u cuskan kara qodobka waa la laalay oo waa runta madaxweynuhu faafinta rasmiga inuu ku soo saaro bay ahayd faafintii rasmiga ahayd soo saarin laakiin kan aan cuskaday waa qodob kale waa qodobka 9aad wuxuu qodobka 9aad ku leeyahay waa hor yaala madaxweynuhu wuxuu kala diri karaa baarlamaanka kolka ay muddadiisii dhamaatay iminka waxay ku jirtaa muddadii dhamaatay way dhasahay muddadii wax yar u baa ka haray oo bilaa ama maalmo ah marka kaana waa cuskan اوكي واقرني wararkaan helayno hadda Soomaaliya naga soo gaaray hadaan nahay maamulayaasha madasha sigistii waxay sheegayaan in isku soo dhawaasho muuqato arintiina ma taqaana maanta guddoonka baarlamaanku uu hor yimid golaha baarlamaanka kana codsaday in shaqadii baarlamaanku u dhigaan maadaama madasha watashi qaranku ay shir yeelanayaan aysan macquul ahayn baarlamaankan inuu shirka la wado warar kale helayna waxay sheegaya culayska ugu weyneed in arintii hadda laga heshiyo oo gobolka Banaadir oo 7 xubnoodna la siiyay Puntlandna wixii loo ogolaaday marka fikirka oranaya wadanka Soomaaliya madanaha kaliya reer Puntland iyo magaalada Muqdisho kaliya waxa nimna oo ummadda Soomaaliya ma taqaan labadaas macna ku gowracanta go'aanka ka soo baxa wax allaale iyo horta wixii soo baxaa dalku khayr u yahay hadday nimankaasi 2 maalmood ay ku heshii waayaan madaxweynayaasha urur goboleedka iijaad baa fariisanaya kalada nimankaasaa la wareegaya oo qodobka qabso haddii aad warkan haysaan in Banaadir loo ogolaaday 7 xubnood maxaa waxaa soo dhibaato keenay maxaa waxaa soo kadeeda keenay maxaa mar hore loo aqbali waayey reer Puntland haddii ay taa aqbaleen waxaan u malaynayaa kuwa ku midoobay Puntland ee malaha way joogaan meeshay uga kici lahaayeen iyagaa yaqaana siyaasi cali daacuun hadday hadalada waxa ka mid ahaa ummadda Soomaaliyeed ama beelaha Soomaaliyeed inay kala maslaxa yihiin aqalka sare iyo gobolka xubnaha gobolka Banaadir waraysiga hore waxa noo sheegtay inay isku raban yihiin aqalka sare yaa ku dhagan yaa sadana khaasa uga dhex muuqdaan marka loo fiiriyo beelaha Soomaaliyeed guud ahaan
adigu hore turkiga ka sheegay horena waa ka sheegay madasha ma jeerteen xubno saayiduu rabaa ma jeerteen kuraasti ummadda Soomaaliyeed marka dhexdankii dib ugu noqoto wuxuu ka soo galay jirib wuxuu ka soo galay jamaame wuxuu ka soo galay baydhaba wixii waa burbureen xabaaliya ninkeedii loo kala teg 4.5 baa la noqday daarood baa la yidhi isku sadbaatihiin 12 bay ka heleen cidda ay kuraasta dheeriga ka rabaan waa daarood kablalax harti ninkay dhici karaan way dhacayaan waa niman maslaxadooda u taagan oo garanaya haddii adigu taada garan weydo ilaahay ku naxariisto cali waxaan ogsoonahay maanta inaynan maraynin waqtiga ka soo sheekaysay iyo waqtigii ummadda Soomaaliya u dhagaxirnay waxaan maraya 2016 ummadda Soomaaliyeed kii macna siyaasadda yaqaanay kaan aqoon kii aqoonta lahaaba maanta waa wada mid beesha daarad markaa fiirisid aqalka sare golaha baarlamaanka horta ma ku wada qanacsiin dad ma beela khaas arra بس باش دارود guud ahaan aqalkaas taas way ka midaysan tahay waxaan ku iri beesha daarood ma reexaan oo kale muraad ma kamale dadkii hadlay ee difaacayay sidaan warka ku helay waxay ahaayeen laba wasageliya nin dhulbahanta ah iyo niman maseerteena maxamed cabdi yuusuf baarlamaanku maanta ka yiri aqalka sare wuxuu tarayaa male loomana baahna waxa weeye markaa haddii saaray gobolka ogolaadaan oo lagu heshiiyo Puntland baa la isla tegayaayo qolada Puntland lahayd haddii anaga ku rooyahay maamul baa loo dhisayo ka mid baanu lahay dadkaasay hawlo u taallaa waxay ka yeelayaan hadday ka baxayaan iyo hadday ku jirayaan iyo haddii la dhacayo iyo hadday ogolaanayaan iyo hadday diidayaan iyo hadday waxooda dhacsanayaan dadkaasay u taallaa laakiin dadka hadda muuqda ee gorgortamaya waa beeshaa ma jeerteen weeye inay gorgortato waxeeda wax doonatana xaq bay u leedahay inay adiga kugu doonatana laga sanadood baan lahaa adigu bay kugu doonanaysaa marka waxa weeye beesulqasiidku markaan gebagabeeyo su-aasha ninaan waxba doonanayn wuxuu dhaamaa nin wax doontay wuxuu dhaamaa ninaan waxba doonanayn dhegeystayaal weli halka nagala socotaan waa madasha sigisti waxaa khadka telefoonka ee magaalada Nairobi si toos ugu jira siyaasi Cali Axmed Cali Daacuun oo ah siyaasi Soomaaliyeed inta badan siya wareysida xasaasiga madasha sigisti wareysiya classified cali hadan anoo ku dana gabagabadii waxaad tiri beela khaasa ku danaysanaya danihii Soomaaliya waxaan ogsoonahay hadda beesha caalamka Mareykanku iyo midowga Yurub inay waraaqa soo saareen waxa kaloo ka shanqarisay in haddii mataqaana labadan beri war sugan laga waayo madaxda Soomaaliya in madaxweynaha dawladaha IGAD ay la wareegayaan arintaas ma arin sharciga waafaqsan ba in wadan qaran oo madax banaan arrimihiisa mataqaan la laalo meel kale la aado mise wali miyaa loo baahan in ummadda Soomaaliyeed waqti la siiyo lana coach gareeyo hadba marxaladda wadda ku sugan la qiimeynayo qarni ayaa laga quustay Soomaali waa 25 sanadood burburkii kadib dibadda shir loogu qabay gudaha shir ku qabsaday marba marxalad yimaade maantay ugu liitaan maanta ayaanay wax kala alahayn 10 madaxweynaha ka samaysmay 10 reer baa yidhi waxaanu nahay dawlad waa lagu arkay inaadan waxba ahayn in urur goboleedka IGAD ay gacanta ku dhigaan arrintana 1900 markay dawladii Maxamed Siyaad burburtay baa United Nations midowga Afrika inoo diiday kolkuu midowga Afrika inoo diidayna IGAD bay inoo diiday waa sida IGAD ay ugu milantay Soomaaliya 25 sanadood maxaa keenay IGAD baa inaga mas'uul oo qarannimadeennii waynu helan kari weyne waynu tanaasuli kari weyne wadaniyad baynu la iman weynay dadnimaynu la iman weynay rabitaan baynu la iman weynay inaynu yaxyaxno oo aynu isla yaabno baynu garan weynay gacantaa lagu hayaa IGAD ciidamadeediina waa kuwa gudaha ku jira marka waxaan ku iri berri iyo saaqaba hadday wax ka soo bixi waayaan
goboleedka igaad madaxweynayaashooda gacanta ku dhigaya iyagaana go-aan gaaraya iyagaana Soomaali isugu yeedaya magaalooyinka iyo tobanka mid kamid ah isugu yeedayaan axri qaameedkii baa dib loogu noqonaya halkaa weeye halkay arrintu ku biyo shubmayso haddii aan caawa iyo berri iyo saaqan xasan sheekh iyo sagaalka madaxweyne iyo jawaari iyo 275 habaarka qaba aanay tanaasul la iman عليو ساشي ugu dambeysay waa garanay hadii mataqaano fursadda hadda muuqata madaxda Soomaaliya aysan go'aan midaysan oo isku raacsan yihiin ee ka soo saareen waxa laga yaabaa kumeelgaarka inta lagu noqdo waa walwalkeeda qabta waaye shalay ama daraad waxaan daawanayay wareysi ama khudbad madaxweynaha baarlamaanka Soomaaliya ka hor akhrinayay markaa fiirsatid madaxweynaha Soomaaliya iyo hadda arrinta ka shakiiraysan waa kaafi kala dheeri madaxweynaha hadaladiisa iyo qaabka iyo emotional ku hadlayo iyo waxyaalo ka hadlayo madaxweynuhu wuxuu leeyahay ummadda Soomaaliya baarlamaanow waxaan ogsoonahay ma ogsoonidine ummadda Soomaaliya hal jihayo adna waxa la madaxweynuhu waa dhaliso waxa la xasan wax dabandaaminaya xagee wax iska qabsan laayiin حسن شيخ محمود بكل احترام وانا احتراميا ومدحوينها يجي ما ديت بوليه انت ما ديت كاسو تروح احترام حق بوليه وورك كليفر ويان وفيري فيري اكتف ويان ومن اقدرتي سكدم شركري ومن درت بودرتي سكهور مارين كرا وحا وكيري بارلمانكا iyo wixii ummad isugu timi sayidka ee baarlamaanka hortiisa banaanbaxaysay ee baarlamaanka eedeegaysay yaa dadka isu soo ururiyey yaa lacagta keenay yaa calamada u soo dhiibay maa shabaab ku qarxiyaan maa qof ka daawacmo maa qof ka dhinto waxba kama jiraan dow isaga ayaa ka dambeeyo soo abaabulay markaa madaxweynuhu bikulli ixtiraam waa nin dantiisa yaqaan kana hormarin kala danta guud ee Soomaaliya kaasi wuxuu ahaa علي أحمد علي داعون وخطك تلفوك النجور رمي مدرسة سجستي سجل جوج مجال نيروبي أنا قاعد أستنى يا ورئيس كان يدين قاعدة دقيقة سيال إنسان قوم دون ورئيس كانوا كل كمية سياسي نبت جاليو